mudana madaxweyne Muuse Biix Cabdi wasiirada ka socda Somaliland ministers from Somaliland marti sharafta kala duwan mudanayaal iyo marwey ladies and gentlemen nabad iyo naxariis iyo barakada Eebe korkiina ha noqoto Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We are delighted farxad ayay noo tahay inaanu soo dhaweyno marti nooga timi geeska Afrika gaar ahaan Somaliland from Somaliland. xaqiiqdii waa arrin taariikhi ah This indeed is a historic occasion. waa markii ugu horeysay ee hogaamiyey ka socda dalkan soo ifbaxay Somaliland From that emerging country lagu casuumo dalkan Kenya oo booqasho uu ku yimaado mar kale soo dhawow madaxweyne welcome once again your excellency. sida aan horeba u sheegay Somaliland iyo Kenya waxa ay wadaagaan xiriir muddo dheer jiray oo taariikhi ah As has already been said that Kenya and Somaliland enjoy long historical relationship. labaduba waxa gumaystay They Ingiriiska were both British colonies. Soomaaliduna waxay u qaybsanayeen dhowr qaybood oo kala ahaa Somaliland was divided. Soomaalida Talyaaniga uu gumaysan jiray Italian Somaliland, qaybta caanfarta iyo ciisaha oo markaasi uu la jeedo Djibouti Fas and Isas. British Somaliland, Soomaalida Ingiriisku uu maamuli jiray iyo Soomaalida qaybta ka ah Itoobiya iyo kuwa la midka ah in Ethiopia and so on and so forth. kadib markii madax banaanida la helay Then independence came and British Soomaalidii Somaliland Britishku maamuli jiray united with waxay la midoobeen qaybtii kale ee Talyaanigu uu maamuli jiray waxaana ay sameeyeen jamhuuriyadda the Soomaaliya Federal Republic of Somalia. waqtigaasi ka hor dad badan oo Somaliland ka soo jeeda But before that ayaa time, yimi there Kenya were very many people from Somaliland coming to Kenya, kuwaas oo Ingiriisku uu keenay halkan being brought by the British. It started when Lord Delamere came from the Horn. waxaana bilaabay arrintaasi ninkii la oran jiray Lord Delamere oo ka mid ahaa Somaliland saraakiisha ka into tirsanaa Kenya. maamulkii Ingiriiska Then after that, intaasi kadib Ingiriisku waxa uu hubeeyay Soomaalidii uu ka keenay and, Somaliland the British had started, had introduced the Somalis to guns and so on. They recruited people from Somaliland iyo kuwa kale oo uu ka keenay Nuubiyiinta together Suudaan with another team from Sudan, the Nubians, waxaana uu sameeyay ciidankii la oran jiray King's Africa to Rival come. They're the ones who formed the first King's African Rifles, KR. iyagoo markaasi la saftay militariga Ingiriiska xilligii dagaalkii koobaad ee dunidu u socday So they came here and they fought along the British military in the First World War. After that, intaas kadib Soomaalidu waxa ay dagsiimooyin ka samaysteen towns. magaalooyinka Kenya haddii aad tagto Kisumu Soomaali ayaa xaafad ku leh If you go to Kisumu, you have found Kambi Somali. haddii aad tagto Kakamega Kakamega, there's Kambi Somali. Soomaalidu xaafad ayay ku leeyihiin In Eldoret, there's Kambi marka Somali. aad tagto Eldoret way ku leeyihiin Soomaalidu xaafad Nairobina waaba tan oo waxa ay ku leeyihiin Islii In Nairobi here, there's Isili. So, intaas kadib waxaa si rasmi ah ay u noqdeen muwaadiniin Kenyaan ah markii dawladda Kenya ay heshay gobonimada sidaas darteed hadda waxaan leenahay muwaadiniin Kenyaan ah oo asal ahaan ka soo jeeda Somaliland and eventually they became Kenyans at independence. So now they are Kenyans of Somaliland origin. markii Soomaaliya gobonimada ay heshay kadib ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Soomaaliya So when independence came, ayaa casuumay aabahay Karamogi Odinga oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii Kenya invited my father, the late Jaramogi Odinga, who was then the vice president of the Republic of Kenya, to tour Somalia. waxa uu tagay Muqdisho And he went to Mogadishu. sidaan ka arkay sawirro la qaaday xilligaasi oo ahayd 1965kii I was later on shown pictures which were taken at that time, 1965. Somaliland xilligaasi waxbay tabanaysay waxaana ay la kulmeen xaaladii isfaham la'aanta ahayd ee kala haysatay labadii Cameroon Cameroontii Ingiriisku uu gumaysan jiray iyo Cameroontii Faransiisku uu gumaysan jiray Somali as a republic. The experience of Somaliland and their brothers down the south is very similar to the British or the British English Cameroon and the French and French Cameroon.
exactly a similar situation exists in Somaliland. xaalad taasi la mid ah ayay ku jirtay Somaliland. Then there was conflict. isqabsi ayaa jiray xilligaasi. There's conflicts all over. sidoo kale isfaham la'aanta ayaa xilligaasi si guud waxay uga jirtay adduunka oo dhan. ka bilow gidaarkii Berlin. Around that time, with the fall of Berlin Wall, burburkii Soviyetka the great Soviet Union collapsed. oo aad garan kartaan intii waddan ee ka go'day. Many countries emerged out of it. iyo Yugoslavia oo burburtay. Yugoslavia also collapsed. dalal badan ayaa halkaas ka soo dhex baxay. Former Federal Republic of Yugoslavia, many countries emerged. oo ay ka mid yihiin Bosnia Herzegovina, Bosnia Herzegovina, Slovenia, we talk of Slovenia, soo qaada Croatia, we talk of Croatia, Kosovo, we talk of Kosovo, xitaa ku dar Czechoslovakia even Czechoslovakia, oo ka go'day Jamhuuriyadda Czechia iyo Slovakia. Czech Republic, and Slovakia. sidaas awgeed isqabsiga Soomaalida midowday dhex yaalay waxba kama duwanayn isqabsiga ka dhex jiray dalalka kale ee adduunka ee aynu soo sheegnay. What has happened in Somalia, or what has happened in Somalia is not different. waxaan la kulmay ra'iisul wasaarihii I Soomaaliya met the then Prime Minister, sidoo kalena noqday madaxweynaha who was the Somaliland founding president Maxamed of Xaaji Ibraahim Cigaal. Somaliland. It's a Mohammed Igal. When he came here and he invited me, halkan ayuu visit yimi Somaliland. waxaanu igu casumay inaan imaado Somaliland iyadoo ay jireen caqabado iyo duruufo badan haddana waxaan u safray Hargeysa and against all the odds, I traveled to Hargeisa, aniga oo sii maray Addis Right, Ababa Ababa, iyo Diridhaba. Diridawa, right into Hargeisa. hal usbuuc ayaan halkaasi I ku spent sugnaa 1 week there. sidoo kalena waxaan tegay I dekedda went to Berbera. the port of Berbera. waxaan soo arkay caqabadaha ay wajahayeen dadka And I Somaliland. saw the challenges that we are going through. I also saw the kind of devastation, sidoo kale waxaan soo arkay nooca burburka ah ee dalka gaadhay. a civil war. markii dagaalku bilaabmay militariga Soomaaliyana ay kiciyeen diyaaradaha miiga ah ee ka duulay madaarka Hargeysa kadibna ay dib u duqeeyeen dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa isla magaaladii ay diyaaradahaasi ka kaceen. from the airport and come back to bomb the civilian population in the same city. taasoo aad arkaysid qalfoofka dadkii diyaaradahaasi ay dileen oo meel kasta And you yaala. could still see the skeletons of the people who had been killed by those bombs which had been. sidaasi daraaddeed Somaliland waxa ay leedahay So they taariikh have aad u a muruga leh. very sad history. balse Somaliland ayaa dal ahaan uga soo That has dhex baxday made taariikhdaasi Somaliland has emerged. inkastoo aan la aqoonsanayn It has hadda. not been recognized. But as we all know, for a long time the People's Republic of China was not recognized. balse waxaynu ogsoonahay in jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha aan muddo dheer qaramada midoobay aqoonsanayn. taasi beddelkeeda waxaa la aqoonsanaa Taiwan. It was Taiwan which was recognized. balse adduunka waxaa hor Eventually the yimi world had no option dariiq kaliya oo xaqiiqa to recognize the People's Republic of China. oo ah inay aqoonsadaan jamhuuriyadda dadka ee I Shiinaha. have had occasion to talk marar aan ka hadlayay golayaasha caalamka sida qaramada midoobay iyo macadka loo yaqaan Chatham House ee Ingiriiska. talked at the UN, and I talked at the Chatham House in London. waxaan si aan kaga basho lahayn u And sheegay I said, in Somaliland ay tahay xaqiiqo aan la dafiri karin. great, and I will say it again, I said that Somaliland is a reality that the world has to live with. That the world has to come to the reality and agree that Somaliland caalamku waa inay xaqiiqda u soo noqdaan oo ay ogaadaan iskuna raacaan in Somaliland ay muujisay dal ahaan inay u jirto will continue to survive and exist as a country, and that the sooner the United Nations recognize this, haddii qaramada midoobay ay aqoonsato Somalilandna cid walba way u fiican tahay. the better for everybody. I know that this is not very complimentary, and I will be accused of interfering in the internal affairs. waan ogahay arrintaasi inay tahay mid uu ka yimaado hadal iyo eedayn lagu tilmaamo faragelin arrimaha gudaha ee dal kale, balse waxaan ogahay in qadiyadan Somaliland ay tahay mid u baahan midowga Afrika inuu wax ka qabto. But this is an issue which African Union needs to address.
midowga afrika waa inuu ka sheekaysto oo wadahadal uu ka yeesho We need to open arrinta a somalilan conversation about the issue of Somaliland. waxa ay la mid tahay sidii midowga afrika uu go'aanka uga gaadhay jamhuuriyadda carbeed ee saxaraawi oo marocco ay ku doodaysay in dalkeeda ay ka mid tahay balse midowga afrika ayaa aqbalay xubinnimada saxaraawi ee midowga afrika Just like they've done with the issues of Sahrawi. halkan somalilanna So this is what should happen here. waxa ay tahay in taasi oo kale ay ka dhacdo That the AU need to wake up to the reality midowga afrikana waa inuu ku baraarugaa xaqiiqada ah inaanay ka shaqayninuun isu keenista labada dhinac balse ay u aqoonsadaan laba dal oo kala gaar ah and recognize them as two separate countries. kuma hadlayo afka jamhuuriyadda I'm not kenya speaking on behalf of the Republic of Kenya. balse waxaan ku hadlayaa fikir ahaantayda raila omolo odinga ahaan Here I'm talking as Raila Amolo Odinga. sababtoo ah madaxweynaha kenya waa uu idinla kulmaya Because the president will discuss with you people, and but we are happy. balse waxaan ku faraxsanahay inaad halkan noogu timaadaan ganacsiga labada waddanna waa inuu kobcaa Trade should thrive between these countries. markii aan hargeysa joogay When I was in Hargeisa, iyadoo duruufo kala duwan ay all the jireen challenges, balse haddana suuqu xaami ayuu ahaa oo lacagtu waa ay wareegaysay money was moving. And this is something where the Somalis are very good at. soomaaliduna arrintaasi aad bay ugu fiican yihiin Got a huge diaspora. somalilanna waxa ay leedahay qurba joog ballaaran oo in, kala jooga kanada Canada, maraykanka United States, New Zealand, ilaa new zealand Australia, iyo australia all over the place. meel The kastaba money keeps on lacagta ayay ka soo shubaan No, there, I just told somebody to take money to Hawala here in Nairobi. markii aan joogay somalilan wakhtigaasi waxaan qof u dirsaday inuu lacag iiga soo diro xawaalad ku taalla halka nairobi nusa saac kadibna lacagtii ayaan ka qaatay hargeysa And within half an hour, I received the money in Hargeisa. waana sidaas qaabka ay lacagtu ugu kala gudbi karto new zealand ilaa hargeysa wakhti aad u kooban sidaas ayaan u ogsoonahay in soomaalidu ay aad ugu fiican yihiin baayac mushtarka rag iyo dumarba That's how they move. Money moves from New Zealand to Hargeisa within a very short period of time, as you know, because Somalis are very, very shrewd businessmen and women. waxaan rabaa inaan idin idhaahdo ku soo dhowaada kenya So I want to tell our visitors that they are welcome to Kenya. sidaad aragteenba As you can see here in Kenya, we are working together. kenyaan ahaan waanu wada We have shaqaynaa what is called handshake. waxaanu leenahay halkudhig loo yaqaano isgacanqaad kaas oo dhiiri gelinaya isu imaanshaha dhinacyada dagaalamaya Bringing two warring factions together. taasna maslaxadda waddankayaga ayaa ku jira oo sidaasi awgeed ayaannu ugu khasbannahay inaannu maslaxadda waddanka awgeed aannu ku wada shaqayno si uu markaasi u guulaysto hadafka guud ee dalku uu leeyahay So, Your Excellency, welcome to Kenya. madaxweyne ku soo dhowow kenya sharaf ayaana ii tahay inaan casuumo madaxweynaha Now it is my pleasure to invite His Excellency to maybe come and ayaa uu yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka kenya raila omolo odinga say jambo. Your Excellency, you're welcome. Audio Jungle.